gaaraysaa xarumaha marka la soo daro la qaabilay ilaa iyo fiidkina wada insha Allah مدن محمد عبد الله محمد عن سود وين مدحوينها إن شاء الله. ما أنت هو مالين وين ومالين فرحات بدن ومالين عن كل جنب وذكير سنة هاي ومالين حسيد مدن ومالين تي أن حرني ماذا قادر لك وفرت قادتي أين الصومالي بدودي ومالين قيمة وين وأنا بهنا هاي qof walba oo Soomaali meel kasta uu joogo meel walba uu joogo qof walba Soomaaliyeed in oo u dabaaldego maalinta wanaagsan walaalayaal xornimadan aan arkayno gobonnimadan aan haysano dad baa u soo dhintay oo naftooda u soo huray oo dhiigoodii u soo daadiyay oo xabsiyo u galay oo habeena badan iyo maalmo badan gaajo ku noolaa iyo silic laakiin uu dhabar adeegay u adkaystay sida ay himiloodu ahayd inay Soomaali mar arkaan oo hora inay Soomaali arkaan oo mid ah inay arkaan maalin Soomaaliya waa leeyihiin inay arkaan Soomaali oo barwaaqo ah inay arkaan Soomaali oo horseed u ah Afrika xaqiiqatan واسويدين كرنا مر موضي كونتون يسدس سنة كذب مر موضي رياضي مر موضي أنا قاعد رواينا كجوابنا وحنا لا وحي كجارين قمي سديد وحي كارين فكر لي هذا وطنية وحنا أقنعي قمي سيا صوماليا قمي سنجري وحي كقمي ستين oo ay ku soo galeen dalka meelahan ka jilicsannahay waxay ka soo galeen Soomaaliya qabyaaladda iyo qabiilka ay isticmaalaan oo ay dhaqan ka soo galaan waxay ka soo galeen meelahan jilicsannahay oo duruufahan haystay dhaqaale inay qaarkeen ay laaluushaan qaarkeen wax siiyaan waxay ka soo galeen inay diinteena bedelaan hadday ay bedeli karaan waxay ka soo galeen inay luqadaheena bedelaan hadday bedeli karaan waxay ka soo galeen meelo badan ay ka soo galeen ay dalkan doonayaan inay muddo badan ku haystaan laakiin waxaa diiday xornimo doonkii gobonnimo doonkii SYL USP SNL NUF oo gobolada waqooyi ahaa iyo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa diiday oo yiri dooni mayno gumaysi waxaan nahay gumaysi diid yaan nahay taasaa waxay keentay in Soomaali ay midowdo
in Soomaali ay midowdo 1 Julaay oo maanta ah oo aan ka joogno 58 sano waxaa guusha iska leh oo loo baahayo in la xasuusto shacabka Soomaaliyeed oo labadaas fakradood fakarkii gumaysiga diiday fakarkii xornimo doonka qaatay oo ahaa Soomaalinimo iyo qab Soomaali qaatay shacabka Soomaaliyeed oo mar walba loo adeegsado oo ah awoodda kaliya oo loo adeegsado dalkan horumarkiisa ciddii rabtana u adeegsato sideeda kale markaasi waxay garab istaageen SYL ayay garab istaageen oo waxay qaateen mabda'a midnimada Soomaaliyeed ayay qaateen maanta aan joogno waxaan taagannahay meeshii ay taagnaayeen dadkii xorriyadda noo keenay maanta meeshay taagnaayeen 1943 ayaan taagannahay oo loo baahan yahay xaaladda aan ku jirno oo aad iyo aad xaaladda aan ku jirno oo marxaladda adaga sidaan uga bixi lahayn oo aan ku raadin lahayn xornimadeennii shabaab iyo alqaacida iyo ISIS waxay isticmaalayaan qaabkii gumaysigu u isticmaalayay siduu dadka u qaybin lahaa waxay isticmaalaan qabiil iyo qabyaalad waan ognahay waxay isku diraan qabiilada waxay samaysteen oo dhaqameedyo iyaga u gaara waxay ku baxshaan dhaqaale siday macluumaad iyo wax walba ay ku helaan waxay isticmaalaan inay qabiilka iyo dadka ay kala qaybiyaan iyo isticmaalaan sidaas darteed maanta waxaa loo baahan yahay inaan dib u soo ceshanno xorriyadeennii dhabta ahayd maxaa yeelay haddii qof walba oo Soomaali ah uu walwal ka qabo siduu gurigiisa ku tegi lahaa waxa weeye dadku xor ma aha dadkuna waxay ku xoroobi karaan iyagoo isku duubta iyagoo midnimadooda ka shaqeeya iyagoo aamina dawladdooda iyagoo aamina qarannimadooda maanta waxaad haysataan dawlad ay adduunka u aragto inay tahay dawlad wanaagsan maanta waxaad haysataan dawlad idin keenaysa sharafkiinna iyo sumcaddiinna ilaalinaysa idin keenaysa magac wanaagsan ayaad haysataan waxaana doonayaa marka inaad daba gashaan oo gacan siisaan oo aad la shaqaysaan dawladdiinna waxaa jira fikrado kala duwan oo la doonaya shacabka Soomaaliyeed inay dhinac ka qaataan bacdamaa Soomaaliya ay muddo dhib ku soo jirtay xaalado adagaan ku jirnay ciidamadeennu ay aad u dhisnayn diyaarado ayna lahayn maraakiib ayna lahayn dabaabadana lahayn waxaa loo haystaa Soomaali inay jilicsan tahay waxaa loo haystaa Soomaali inay tabar daran tahay Soomaali ma tabar darna inta shacabkeedu uu garab taagan yahay awoodda shacabkaas ka leh dadka doonaya shacabka Soomaaliyeed inay qalbi jabiyaan dadka doonaya shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdooda inay iska hor keenaan macnaheedu waxa weeye dawlad la'aan weeye waa nidaam la'aan waa sharci la'aan waxaa idinka rabaa inta ciidamada Soomaaliyeed ee meeshay ahaayeen 30 sano ka hor ama 40 sano ka hor ay gaarayaan waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay gacan siiyaan ciidankooda oo garab u noqdaan oo ay taageeraan waxaad ogtihiin ciidanka si kasta ahaado waxaad ogtihiin inay habeen iyo maalin u taagan yihiin bannaanka inay dhaxan u taagan yihiin inay kaneeco u cunayso difaaca ummadeed difaaca dalkan difaaca qaranka Soomaaliyeed iyo difaaciinna way dhici kartaa dhowr ka mid ah inay qaab daran yihiin waa dhici kartaa iyagana wiilasheenni weyn waa toosinaynaa insha Allah waa tababaranaynaa maxaa yeelay sacrifice-ka iyo dhibka ay ugu jiraan yaa la rabaa in lagu qiimeeyo maalin walba ay u dhaawacmaan xabad baa ku disha waxaa la rabaa inaan ognahay duruufaha ay ku jiraan shacabka Soomaaliyeed
waxaan taagannahay maanta meel wanaagsan oo dalkaanu ku yimid dimuqraadiyad oo aan doonayna awooddii inaan gacantiina ku soo celinno oo aan doonayna inaad codaysaan idinku oo qofkaa rabta doorataan mustaqbalka aan doonayno oo wanaagsan waa kaas weeye dalkan sidii maalintii xorriyaddu qaatay dadkii Israa'iilka ahaa iyo madaxdeennii hore ay u design gareeyeen ay u asteeyeen ay u qorsheeyeen waa inaan dib ugu soo celinno dimuqraadiyad ah annagoo wax ka barannay dhibaatooyinkii iyo marxaladihii iyo duruufihii adkaa aan soo marnay annagoo ka faa'iidaysanayna oo wax ka baranayna in ay Soomaaliya noqoto waddamada ugu horreeya oo dimuqraadiyad ah dowlad walba dowladda ka dambaysay waxay u tahay qori isku dhiib dowlad walba dowladda ka horreysa iyay wax u bilaabaysaa oo shaqada u bilaabaysaa waxaa loo baahan yahay qof walba inuu garab ku siiyo dowladda maxaa yeelay waxa la dhisaayo waa qarannimo waxa la dhisaayo waa dowladnimo waxa la dhisaayo waa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed oo aan ognahay maanta xaaladda uu marayo meeshu taagan yahay ugu dambaystii Soomaaliya waxay u baahan tahay nabad Soomaaliya dagaal dambe iyo colaad dambe uma baahna waxaan leeyahay arrimaha tukara ka socda ee dadka Soomaaliyeed ee dhiigooda bilaa macnaha ku daadinayo hala joojiyo waxaa ku dhimanaya wiil Soomaaliyeed waxaa ku dhaawacmaya wiil Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed ayaa ku gablamaysa hala joojiyo Somaliland waa dad walaalaheena ah duruufo badan iyo dhib badan yaa soo maray oo laga yaabo inuuna kala qaybiyey dowladdan diyaar waxay u tahay inay wada hadallay soo celiso oo si wanaagsan oo run ah oo xaqiiqa loo wada fadhiisto Soomaali kala maaranto waa dad walaalaah waa dad isku dad ah waa dad wax walba wadaaga inaan ummadda Soomaali isku soo celinno oo isku soo dunno oo aan walaalino yaa qof walba oo Soomaali ah iyo mas'uuliyiintu ay waajib ka saaran tahay aniga ugu horeeya oo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdeeda diyaar waxaan u nahay inaan soo celinno wada hadalkii si kasta aan kalsooni ku gelin karnaa waa lahayn aan ku gelin maxaa yeelay waa gacan naga maqan waa garab naga maqan weeye ugu dambayntii shacabka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa marnaba ha ogolaanin cududday haddaad tihiin cududdii ummadda Soomaaliyeed marnaba ha ogolaanin dowlad kasta oo timaada in idinka hor keeno maxaa yeelay idinka ayaa ka faa'iidaya carruurteenna ka faa'iidaysa caafimaad yaa laga heli waxaa adeegii dowladda laga rabaa wadannimo laga rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waddaniyadu hadal ma aha waddaniyadu waa ficil waddaniyadu waa dalka inaad difaacato waddaniyadu waxa weeye dowladda inaad dhowrato waddaniyadu waxa weeye inaad canshuur bixiso waddaniyadu meesha ugu sahlan waddankaaga inaad qashinka ka aruuriso weeye waddaniyadu waa inaad qabiilka ka fogaato iyo waxa idin kala qaybinaya oo isticmaalka hore u isticmaalay haddana ay doonayaan alqaacida iyo ISIS inay noo isticmaalaan oo ay nagu kala qaybiyaan oo awooddeena nagu kala dantaalaan waxaan noo ballan hadduu ilaahay yidhaahdo sanadkiisa horumar muuqda inaan gaarno annagoo isku duuban oo gacmaha haysanna oo walaalo ah oo ilaahay hadduu yidhaahdo midoobay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh